سؤال كلام هلا هاي سعيد الكلية هاي عارف مساتيد مدارس ولا ذكر الدول بعد مقاعية العالم مع الوكالة أيوة سيرهم مقاعية يكون قرار سيرهم منينك أو الواقع سمكارة زاد isugu yimaado baa muslimiinta midayn kara dadku ra'yigooduna iyo sida la fiicanna ma midowdo way kala duwanaadaan danahooda iyo masaalixdooduna way kala duwanaataa diintu waxaa asal u ah kitaabka ilaahay iyo sunnada nabiga sala allahu calayh wasalam haddii labadaa laga midaysan yahay masaa'ilka qaarkoodoo lagu kala duwanaado oo ijtihaad iyo culimmadii horeba ku kala duwanayd colaad iyo qaybsanaan ma keento haddii aan shakhsiga markaas isagoo si khaldan u maaraynin haddii masaa'ilku asalka laga midaysan yahay in la iskhilaafay laba khilaafoo dabiiciya jirta ay tahay inayna keenin dagaal iyo colaad iyo xumaan aanay keenin mid waa masaa'ilkii culimmada muslimiintuba ku kala duwanaayeen kuna wada socdeen oo hal aayad baa laga yaabaa xadiid laba si in loo kala fahmo waana sida madaahibta muslimiintu ay ku dhalatay waana lagu kala duwanaan jiray tani waqtigii saxaabada masaa'il cilmiga ka mida laakiin kuwaasi ma keenaan haddii asalkii midaysan yahay in dadku isdilaan ama kala fogaadaan ama xumaan iyo colaadi dhex taalo mid labaadoo dabiici ah waa jiraayoo inuu keeno laga yaabo dabeecad iyo dangaara dadku ilaahay haddii uu abuuray dabeecadahoodu qof dabeecad xun iyo qof dabeecad fiicanba waa la leeyahay culimmaduna dadkeedaasay ka mid tahay qof mid waliba dabeecaddii ilaahay u abuuray umuu qofku ama culimo ku noqon ama siyaasi ku noqon ama ganacsada ku noqon ama takhtar ku noqon annaasu macaadin ka macaadin adahabi waalfida nabiga calai slam wuxuu yihi usuul iyo dun bay dadku kala leeyihiin sida dahabka iyo fidada oo kale qof dun fiican iyo qof aan dun fiicnayn markii la leeyahay guurka laga hadlahayo diin iyo khuluq ha laga eego diin keliya kuma ekaanin waxaa leeyahay qofka quraan akhris badan cibaado badan salaad badan inuu yahay laakiin dabeecadda uu eber ka yahay oosan dad la dhaqmi karin dadkuna siday ahaayeen ilaahay uu dabeecadda dulqaadka garashada u kala siiyey bay u kala duwan yihiin meel kastoo ay galaan dhakhaatiirtu isku caqli maaha ganacsatada isku caqli maaha siyaasiyiintu isku caqli maaha dhaqanku isku caqli maaha dhalintu isku caqli maaha culimmaduna isku caqli maaha nabiga markii la weydiiyey carab yaa ugu fiicnaa dadka yaa ugu fiican baa la yidhi markaasuu yidhi nebi yuusuf ina nebi yacquuba ina nebi isxaaqa ina nebi ibraahima ugu fiican ninka nabiga isaga ah intaasoo nabina yacquub iyo isxaaq iyo ibraahimna ku abtirsaday maanaan ku weydiinin baa layidhi marka wuxuu yidhi facan macaadini ilcarabi tas'aluun dun wanaagga iyo dun macaanka carabta maad i kala weydiinaysaan iyo shakhsiyadooda dadkooda waxay dhahdeen haa wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam markuu xadiidkan sheegay wuxuu yidhi fakhiyaaruhum fi ljaahiliyati khiyaaruhum fi lislaam idaa faqihuu dadku sidii markii hore loo kala shakhsiyad fiicnaa unbaa loo kala shakhsiyad fiican yahay diinta haddii la wada fahmo oo la wada qaato diintan qaatay iyo cilmi baan bartay
qofkii dabeecad xumaa dabeecad fiicnayn maysa inta la raba gaarsiin mayso sababta waxaad ogaataan culimadu way bateen qowl kastoo batana dadku intuu ahaabay noqdaan ku dabeecad xun baa ku jira ku hunguri xun baa ku jira ku caqli xun oo caqli gaaban baa ku jira ku xukun jecel baa ku jira intay dadku ahaayeen dabeecadooda kala duwan bay culimaduna dadkaasay ka mid yihiin oo abuurka ilaahay dee ilaahay abuurkiisaasay ka mid yihiin meelaha ay joogaan ninba dabeecaddiisii iyo shakhsiyaddiisii buu la joogaa macallin ilmaha edbilahoo dakhrasoomaydan arki jirin waxaad arkaysaa nin sheekha oo dabeecaddii eberka ah iyo nin caamoo dabeecad wanaagsan baad arkaysaa sheekh bakhaylihiyo maxamed diiqsiana waad arkaysaa marka dee runta laga hadlo wey sheekh xukun jecel oo meesha isaga mooyeen cid kale inay soo agmarto aan ogolayn baad arkaysaa nin baa soo daahi jiray imaam buu ahaaye ninka imaamka ahaa nin baa tukiya dadka markuu soo daa dhowr jeer buu lahad wuxuu waxaad yeeli meesha iska daa meesha had gelaysa joog buu mar dambe ha geli maalinka dambuu soo dahay oo ninkii tukinayo u yimid isagoo sujuudsan buqadaad kaga istaagay firq maxay tahay daasoo kuma dhihin meeshan ninkaasi boos ceshi buu ahaa markuu tilmaamaya ogaado culimmadii ha bataane waa tabaa'icdii bini aadamkay kala leeyihiin say aqoontu u kala duwan tahay abuurka muuqaalkuna u kala duwan yahay bay dabeecadoodii iyo shakhsiyadoodii iyo caqligoodaba u kala duwan yahay taasi waxay saamaysaa isqabadka qayb badan bay ka noqotaa ninbaa xaalad abuuraya waayo meesha in loogu yimaaduu ka baqaya ninbaa xaalad abuuraya meeshan waxoogay jaga iyo koox buu haystaayo intan amaa lagaa kala daadiyaa buu leeyahay ninbaa xaalad abuuraya meeshan nacfi iyo waxbuu ku qabaa waxoogay dhaqaale iyo nacfi buu ku qabaa qaybo badan oo khilaafka aad aragteenihi labada arrimood ama waxyaabo dana shakhsi ah sax ma habboona ninka diinta xambaarsani inay waxyaabaha ka bataan laakiin waaqaca runtaa sidaas qayb weyn bay ka yihiin khilaafaadka aan la xallin karin waayo markaa xaajadii gasho masale diina maaha aayad maaha xadiid maaha wax la taaban karoo la ysku hayo aakhir marka dambe ragannimo iyo xiniin baa ragga dhex taalla markay xiniin iyo ragannimo timaada iyo dabeecado timaadana xal badan ma laho waana soomaalida maxay dhahaan abuur baa ka horreeyey waano abuur baa ka horreeyey carabtuna waxay dhahdaa atabcu qalaba tatabuc dabeecadda abuurka ee asalkaa iska keenkeenka ka xoog badan hadaad waxooga iska yar keenkeento intii iska keenkeenka way dhammaan intay run tahayd baa soo bixi taas iyo mas'alo si khaldan qof uu u fahmay labadaasi mar bay isku darmadaan dabeecaddii baa loo isticmaalaa dhinacan kale marka khilaafaad waaweyn hadday jiraan ama fahan xumo diineed baa jirta ama isku dhac ama dabeecad shakhsi ah oo danaha iyo duruufta dabeecadda abuurku ay saameynayaan baa jira saas darteed wixii la dhoweyn karee khilaaf la yarayn karana ha la yareeyo wixii laga gudbi waayana inta muhiimka ah ee cilmi saxa inaad ka barataan ha laga raaco wabillahi towfiiq